Sealand ama dalka baddu waa waddanka ugu baaxadduleeda dadka iyo bedkaba yar dunida. Waxa uu ku yaal bartamaha biyaha badda boqortooyada Ingiriiska. Waxaana dalkan la aasaasay sanadkii 1960kii. Waxaana yegleelay ninkan la yiraahdo Roy Bates, ka oo bilowgii doonayay inuu samaysto radio station, balse dowladda Ingiriisku u diiday maadaama waaga raadiyaha kaliya ee dalka ka jiray ahaa BBC. Dabadeedna waxa uu go'aansaday inuu halkan bartamaha badweynta ka yegleelo raadiyihiisa. Radio kaliya ma samayne. Waxa uu dhisay dal dhan oo leh calan, baasaboor, dalkugal iyo xitaa lacag waddankiisa u gaar ah. Isaguna waxa uu isu caleemo saaray boqor. Maadaama towerkan oo biyaha caalamiga ah ku yaalay ka oo bilowgii ay dhiseen militariga Ingiriisku intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku, Roy waxa uu suurta gashay inaan cidina soo faragelin jiritaanka dalyarihiisa, ka oo ilaa maanta 65 sano kadib qoyskiisu ka taliyaan, kuwa oo kala dhaxal suge Liam iyo dhaxal suge James. Sheekada jiritaanka dalyarahani maad ma aha, ha yeeshee weli aqoonsi kama helin xitaa boqortooyada uu deriska leeyahay ee Ingiriiska, balse waxay aaminsan yihiin inaysan uga baahnayn midaas. Mid cajiib ah ayaa ah in dalka Jarmalku mar waddankan diblomaasi u soo diray, ka oo wada xaajood ka galay sii deynta muwaadin dalka u dhashay oo halkan 3 bilood ku xirnaa kadib markii uu ku xadgudbay shuruucda joogista shisheeyaha ee Sealand. 7 sariirood oo hurdo, gym, xabsi, garoon helicoptereedkan yar ee dushiisa ku yaal iyo hal askari oo ah gaarhayaha dalkan ayay leedahay Sealand. Waxaase baasaboorkooda haysta dad tiradoodu ay gaarto 300 oo qof adduunka oo dhan. Waxayna mustaqbalka dhow doonayaan inay sii ballaadhiyaan muwaadiniintooda.